صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة في الله، حكوك ذا الشرني وأن كهليني دردار مدي ربك تبارك وتعالى وينظر دار مي طبنكها سورة الأنعام آخر كذا قيمت. waxaynu kaga soo hadalnay khudbadii hore tobanka dardaarankii u horeeyay oo Allah xaqiisa tabaaraka wa taala. waxaynu kaga hadlaynaa maqaamkan xaq labaad oo وبالوالدين إحسانا. labada waalid ihsaan u sameeya u samafal. ربنا تبارك وتعالى مركو حقي سي شيغي وإن كلغي لعابد عيدنا أو وحللا ولا جنينه أيو وحو دبدغي أو كل مانيي لبدا والد حقودا آيادا كليا معها قرآن كعاددي ساسلاس ربي مركو حقي سي شيغو حق لبدا والد دبدغا ربي تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. الله وحو حكمي أما إذن دردارمي أما إذن أمري إن إذن عابدين إذن إساق أهين كاسو حقيسي. وبالوالدين إحسانا لبذا والدنا إن هذا إحسان السميسان. وربي يقول تبارك وتعالى وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الله عابدا عبادتي سنعدك لها لو ذا تشننا كاسوا حقيسي وحال قدم بيسي. وبالوالدين إحسانا لبدا والدنا إحسان السمي. الله يقول تبارك وتعالى أن اشكر لي ولوالديك أنك يقول شكري وحقيسي. لبدا والد كشكري مقدم بيسي لبدا والدنا كشكري حق ربي تبارك وتعالى وحال دبدغ لوغ لمانيي حق لبدا والد اي كوغ ليه ماشي الهي دغاي ميل سهلا ما سيده درادت ايا ذنب الهي لغا غلو waxa ugu weyn shirkiga waxa ku xiga inaad waalidkaaga caaq ku noqoto caaqul waalidayn inaad noqoto. nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saxaabadiisa wuxuu ku yiri war ma idin ka warama ma idin sheega dambi la gala ko ugu weyn markaas idin noo sheeg rasuulilaahi markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al-ishraaku billah ilaahi adoomadiisa laga dhaxaysiyo xaqi Allah laha shirki wuxuu ka dambeeyay nabiga sallallahu alayhi wasallam wa xuquuqul walidayn labada waalidooda caaq ku noqoto oo xaqoodii aad gudan weeydo. sidaas daraadeed xadiiska nabiguna waa istabadhigay oo labada dambiye ugu waaweyn buu ka dhigay. quraankuna xaq ahaan labadooda waa istabadhigo waa isku lamaaniyay. xaqaasi hadaad gudan weeydo shaki kuma jiro inaad khatar ugu jirto naar galitaankeeda. jannada rabbi tabaaraka wa taala galitaankeeda waxa sabab u awaalidkood baari u noqoto waalidkaagood ihsaan u sameeyso waalidkaagood ka dadaasho. haddaad dayacdo ama ku amar diido ama aad caasido adiga janno waa isdayseen qoygaaguna waa cadaab iyo cara Allah tabaaraka wa taala. waxa nabigeena ka sugan salawaatu rabbi wa salaamu alayhi in uu yiri نبا ويب رسولك صلى الله عليه وسلم markaasuu rasuul ilaahay waxaan rabaa inaan duulaan iyo jihaad iyo dagaal baan u bixin rabaa inaan kula